qaar ka mid ah xildhibaanada dawladda kumeel gaarka ah Soomaaliya ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa waxa ay maanta war saxaafadeed ka soo saareen hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni iyadoo maanta shir uga furmay madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya shirkaas oo ay gogashiisa dhigeen ururka lagu magacaabo Contact Group asaxaatay shirkaas ayaa waxa ka hadlay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni isagoo oo soo bandhigay in hal sano loogu daro dawladda kumeel gaarka ah Soomaaliya iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed xildhibaanada tan ku sugan magaalada Nairobi ayaa waxay ka caroodeen hadalka ka soo yeeray madaxweyne Yoweri Museveni madasha ka hadlay ayaa waxa kamid ahaa Maxamed Cabdi Yusuf xildhibaanada meesha fadhiya iyo dadweynaha kale sharafta loo ayaan dhageysanaya iyo bahweynta isgaarsiinta kulli wada salaamaya munaasabadan maanta aan isku nimid xildhibaano badan waxa kalifaya waxa weeye oo isku afgaranay inaanu jawaab ku haboon ka bixino warka naga soo gaaray shirkii maanta ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Uganda oo ay qabatay hay'adda la yiraahdo International Contact Group qodbadii uu ka soo jeediyay madaxweynaha dalka Uganda Museveni taasoo ku bilaabay inuu hadal aan laaqi u ahayn kuna haboonayn ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada Soomaaliyeed oo xadgudub ku sameeyay sharafta ummadda Soomaaliyeed meel ka dhac iyo faragelin ku sameeyay dawladnimada iyo madaxbannaanida ummadda Soomaaliyeed taasoo ku yiri baarlamaanka Soomaaliya cid soo dooratay male mana jiro sharciyadna male wuxuu dooran kara jirto sidaas daraadeedna wax uu ku yiri madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan soo jeedinayaa hasan loogu daro arintaas iyada annaga waxaan nuqsaynaya waxa weeye inaanu ka jawaabno hadalka xadgudubka ah oo nagu haboonayn oo sharafta ummadda Soomaaliyeed ku haboonayn inaanu ka jawaabno sidaas daraadeed markale waxaan ku celinayaa anoo saaxiibadii magacooda ku hadlaaya in arintaas uu ka laabto cudurdaarna ka bixiyo faragelintana ka daayo ummadda Soomaaliyeed sidoo kale isna waxa ka hadlay xildhibaan Madoobe Nuno Maxamed waynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo runtii aan u arkayno inuu inkiray jiritaankii baarlamaanka Soomaaliyeed inuu faragelin ku sameeyay nidaamkii iyo shuruucdii dawladnimo ee Soomaaliya taasoo runtii aad aan ugu xunnahay kana soo horjeedno waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda annaga dooranay ciidamadiisa dalka joogana go'aanka baarlamaanka ay ku yimaadeen meesha haddii uu dhowri waayo sharciyada baarlamaanka waxaan u gudbi doonaa baarlamaan weynaha inuu ka fiirsado joogitaanka ciidankiisa ee meesha jooga sidaas la mid ah waxaan u mahad celinaynaa ciidamada kale ee Amazon ka jooga Soomaaliya ee Burundi oo runtii ilaa iyo hadda wax faragelin ah siyaasadda Soomaaliya aysan ka yeelan gutayna waajibaadkii loo soo idmaday oo halkaasayto ay ku joogaan marka waxaan ka codsanaynaa Yoweri Museveni inuu ka laabto hadalka ka soo yeeray ugu dambeyntiina waxa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay xildhibaan Xareed Xasan Cali bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaanadii iga horeeyay magacaygu waa Xareed Xasan Cali weeye xildhibaanadii iga horeeyay hadalka iyaga dhameeyay waxaan kaliya u qaatay waxaan u maleynayaa waxba isfasiraya 2 sano iyo 7 bilood ka badan bay joogeen ciidamada Amazon khaasatan ciidamada Uganda hal maalin weerar ma ay qaadin oo ma ay soconin 2 bilood markay ka dhiman tahay doorashadii yaa la dhaqaaqay oo ciidamadii dhaqaaqeen fasiraadii marka maanta ay dhacday madaxweynaha Yoweri Museveni baana fasiray inaan doorasho dhicin baarlamaanka Soomaaliyeed wax dooran taasna waxaan u maleynayaa hadaan la is dooran inaan sharciyad jireynin ciidamada Amazon sharciyada ay ku joogaan marka inay yaraan doonto waxaan leenahay waa noo kala soocan yihiin shacbiga Uganda iyo shakhsi madaxweynaha aad cid doonaha shacbiga reer Uganda wiilashoodii ay noo soo direen oo dhiigayaga ay yaani dhiigoodii noo daadinayay waa ka mahadnaqaynaa laakiin waxaan aad uga xunnahay madaxweyne Yoweri Museveni inuu maanta yiraahdo 12 milyan iyo baarlamaanka sharciyadooda ciidamadu ku joogeen
wax doorasho oo ay geli karaan ma jiraan taasna aad baan uga xunnahay waxaan kale u mahadnaqayaa sida saaxiibada iga horreeyay ay mareen ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Agostino Mihigo iyo Security Council-ka sida iyo United States America iyo dawladaha kale oo iyaguna arintaas nagala shaqeynaya in doorashadaas ay dhacdo macnaheedu waxa weeye hadaan doorasho dhicinin waa hal la isdilo Soomaaliya burbur baa loo celinayaa iyo dagaal dambe mana yeelayno doorashaduna waa dhacaysaa hadii la haydo hadalkani ka soo yeeraya baarlamaanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa waqti uu madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo maanta saxaafadda kula hadlay isaga oo sheegay in madaxweynaha dalka Soomaaliya loo kordhiyo hal sano halkaas uu sheegay in baarlamaanka dawladda Soomaaliya la kala diro maadaama aysan jirin wax u soo doortay horay Calula Nur Calula Somali Channel Nairobi